waa xog baadhis ka duwan kuwii hore aad nooga barateen waana warbixin ay tabayeen badiba dhagaha shacabku yagleelkii xukuumadda haatan ee madaxweyne biixi waxa rarka la furay bilowgiiba magac cusub oo ay la bixeen koox gaar ahi waxaanu noqday magacaasi mid qayb weyn ka qaata isku milanka qabaa'ilka iyo siyaasadda waxaana sii maydhmaya marba marka ka dambaysa muuqaalkii huwanaa midnimada qaranka naca niyad jabka nugulka qarannimada iyo raadsiga nolol kale intuba waxay ahaayeen natiijada ay muddo kooban dhaxal siiyeen dhallinyaradii dalka haddaba haddaad isweydiinaysa in badan waa maxay heego maxay qabataa heego awoodo noocee ayay leeyihiin yaase siiyey intee ayay u qaybsamaan maxayse ka midaysan yihiin muxuuse yahay halaaga laga dhaxli karo heego ka hel jawaabaha su-aalahaasi warbixintan koobaysa halka uu ka unkamay kana kowsaday qaranka kale furfurkiisa kabaha loo iladay haddaba heego waa koox haybeed aan la dooran oo ku habsatay hogaankii hantidii qaranka haba qaataane waa hantida iyaga ayaa kala qaybiyey dadkan kala qaybsan iyaga ayaa kala qoqobay bulshada kala qalootay iyaga ayaa qayb weyn ka qaatay qaranjabka muuqda iyaga ayaa ummadda nacsiiyey dalkii dhibaatada badan loo soo maray dhiqintiisa iyaga ayaa niyad jabiyey dhallinyaradii dalka iyaga ayaa ka dambeeyey in daayartii dalku u xubsibato xamar iyaga ayaa ka xigsada dalka cid kasta oon la xaafad ahayn iyaga ayaana sadqeeyey somalilantii la wada lahaa saaka ka hor ugu horrayn magaca heego xaggee ayuu ka yimi yaase bixiyey markii ugu horeysay ee magacan la maqlo waxa uu ahaa dhamaadkii sanadii 2018 kadib markii uu qoraaga caanka ah Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo waqtigaasi dalka ku sugnaa uu ka biyadiiday ama uu ku qanci waayay qaabkii dawladda waqtigani wax uu wado isla markaana uu bilaabay qormooyin dhaliila dagaal lagu qaaday oo uu kala kulmay koox awoodii dalka haysato oo aan la dooran una shaqeysa habka kooxdii dhibaatada baan ka geysatay jigjiga xilligii madaxweynihii la riday ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiile loo oran jiray heego waqtigaasi ayuu Maxamed Baashe bixiyay magaca heego isagoo marka uu ka waramayo kooxdaasi u adeegsan jiray ereyga heegada Hargeysa sidaas ayaanu magacii ku raacay kooxdaasi su-aasha isweydiinta mudan ayaa maxay qabataa heego waxa ay kooxdani gacanta ku qabsadeen awoodihii dawladnimo ee dalka waxa ay ku takrifalaan oo adeegsadaan magaca iyo shaarka madaxweynihii la doortay waxaanay qaataan mashaariicda horumarineed ee dalka waxa ay dhaqaalihii iyo dakhligii dalka u isticmaalaan sida ay doonaan waxay isku taxeen xilalka hoose ee qaranka sida xisaabiyayaasha wasaaradaha khasnijiyada iyo hay'adaha dawladda waxa ay gacanta ku hayaan waaxyaha maamulka iyo lacagaha meel kasta oo dakhli yaalo sidoo kalena waxay magacowdaan oo ay gacanta ku hayaan xogayaasha madaxda ugu sarreysa ee dalka waxa ay shaqada ka eriyaan qof kasta oo ka hor yimaada waxa ay xarig u maleegaan muwaadin kasta oo ay u arkaan inuu yahay caqabad hortaagan waxa ay ku eedeeyaan Soomaali weyn beelaha qaarkood waxaanay daba sidaan shaambada akhiyaan oo la qaran qof kasta oo diida nidaamka jira ama dhaliila habka ay wax u socdaan waxa ay ku qaraabtaan oo ku adeegtaan magaca beesha madaxweynaha waxaanay sumcadda ka dilaan madaxweynaha iyo deegaankiisa iyagoo uga faa'iideysanaya in eedda qaranka dhiig baxaya dusha looga tuuro beel iyo ummadaan waxba galabsan haddaba heego maxay yihiin heego ma aha wasiiro balse waa kuwa ku dul maamulo wasaaradaha waa kooxa ka dhex dhisan wasaaradaha ugu waaweyn ee dalka iyo madaxtooyada waxa ay badi hayaan xilal hoose oo awood iyo dhaqaale badan waxa ay awood u leeyihiin inay iska bedelaan wasiir iyo mas'uul kasta oo la jaan qaadi kari waaya waa kuwa awooda inay keensadaan cid kasta oo ay ka dhex arkaan danahooda waana kuwa awooda inay kala qariyaan madaxweynaha iyo cid kasta oo toosin lahayd tilmaami lahayd lana talin lahayd waana kuwa haysta dhagaha madaxweynaha goobaha ay gacanta ku hayaan waxa kamid ah wasaaradda maaliyadda xafiiska hantidhawrka guud xafiiska xisaabaadka qaranka iyo xafiiska gudida qandaraasyada bangiga dhexe ee dalka wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda ganacsiga tajidadka hawlaha guud qorsheynta iyo hay'adda duulista iyo waliba shaqadii ay qaban lahayd madbacadda qaranka oo lagu bedelay lala siiyo qandaraasyada daabacada shirkadda gaarka loo leeyahay ee Sagal Jeed waxa intaasi dheer dhamaanba waxyaha kala duwan ee madaxtooyada bartilmaameedkooduna waa goobaha ugu muhiimsan ee dakhliyaal ama dakhli maro iyo hay'adaha dakhliga hubiya iyo kuwa sii daaya sida ayay hadaba ku heleen awoodda intaasi leeg waxa ay ku guuleysteen inay hantaan qulubta madaxweynaha dhagaysiga uu dhagaysto iyo talada uu ka qaato ayaa siisay awoodda dheeriga ah ee ku baqageliyaan kuna dhex marsadaan danahooda madaxda kale ee dalka dadka u dhun daloola siyaasadda qaarkood waxa ay ku sheegaan in madaxweynuhu aanu raalli ka ahayn waxa ay samaynayaan balse kaliya ay dhex marsadaan dhagtana u saaraan dadkaasi waxay aaminsan yihiin in qaab aftuub siyaasadeed ay ku haystaan madaxweynaha oo la sheego inaanu ahayn siyaasi bisil oo ay siyaasaddu hagto ama aqoon-yahan cilmi ku tiirsan ayna taas uga faa'iideysteen halka ay koox kalena qabto inuu madaxweynuhu qayb ka yahay dhagartan qaran oo qorshayaasha si guud u wada maleegaan una raalli kaga yahay naaquudayaashan doonida sii dagaysa ee dadku saaran yihiin dakhilka u fuushan haddaba intee ayay u qaybsantaa heego guud ahaan waa kooxa dawladda xilal waaweyn iyo kuwa yaryarba ka haya qaar shaqaale ah ganacsato iyo kooxa ka tirsan qoyska madaxweynaha balse waxaa jira 3 kooxood oo ay u qaybsanto heego
saddexdan qaybood ee heega u qaybsanto waxa kala hogaamiya kooxo kala aragti duwan balse kaliya ku midaysan in madaxweynaha aanay cid kale u dhaafin markaan aan eegno kooxaha heego iyo sida ay u kala awood badan yihiin kooxda ugu awooda badan waxa hogaamiya xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha Mubaarak Tani iyo wiilka curad ee madaxweynaha Maxamed Muuse waa kooxda leh awooda koobaad samaysa magacaabis fududaysan eerinta cid la isku garan waayo waa kooxda koobaad ee u afduuban yahay madaxweynuhu kooxdaasi waxa kamid ah mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin waaweyn kooxda labaadna waxa hogaamiya Cabdi Yuusuf Aar gudoomiyaha shirkadda Sagaljeed iyo Mustafa Gacma Dheere oo ay u dhaxdaynanta ugu weyn caruurta madaxweynaha kooxdani waa ganacsato dilaalina waa kuwa qaata mashaariicda ugu badan sidoo kale waxay dilaalaan mashaariicda ka waaweyn iyagoo u fududeeya ganacsatada darajada koobaad inay uga soo dhameeyaan madaxweynaha sidaana waxay kaga qaataan dilaalkooda lacageed waa kooxda gacanta ku haysa mashaariicda dawladdu bixiso waxay ka kooban yihiin mas'uuliyiin xilal haysa ganacsato darajo saddexaad iyo mashaariicistayaal cusub kooxda saddexaad waxa hogaamiya Maxamed Ali Bilaag asimaha madaxtooyada waa koox ku hoos nool labadaasi kooxood hase yeeshee kooxdan oo ka kooban shaqaale dawladeed dhalinyaro dibad joog ah oo la guneeyo waxay u qaabilsan yihiin heego been abuurka iyo faafinta dacaayadaha sidoo kale waa koox inta badan ay aflagaadooyin u geysta beelaha qaar sida beesha madaxweynihii hore iyo qaar kamid ah beelaha kale ee Soomaaliland oo ay ku eedeeyaan midnimadoon haddaan si kale u dhigno waxay xidhaan shaarka inay iyagu gaarhaye ka yihiin go'aansataaga dalkii loo wada go'ay waxaanay ka xigsadaan Soomaaliland qabiilooyinka qaar waxaanay sumcad darro uga dhigaan Soomaali waa kooxda aflagaadada ka soo unka gruubka 9 qof ee WhatsApp-ka oo laga soo abaabulo beenaha iyo maaga iyo cayda loo geysto siyaasiyiinta ee qabaylka qaarkood waana kuwa isku qaybiyay xisbiyada qaranka waxa ay ka midaysan yihiin saddexdan kooxood in talada guud aanay gacantooda ka bixin ayna ku shaqaystaan magaca madaxweynaha iyo beeshiisa waxayna si wada jir uga hortagaan cid kasta oo isku dayda inay madaxweynaha u dhaafto hase yeeshee waxa dhexdooda taala tabashooyin badan oo ay kala tirsanayaan waana kuwa gudahooda isu awood sheegta sidoo kale waxa jira kuwa ka tirsanaan jiray oo ay shaqada ka caydhiyeen iyo kuwa cusub ay ku soo biiriyeen bilihii u dambeeyay hooga laga dhaxli karo heego ayaa shacab kala qalooda qarannimo lunta iyo qabaayil culooba hooga laga dhaxli karo heego ayaa burbur dawladnimo dalbaaba iyo bulsho kala fogaata hooga laga dhaxli karo heego ayaa qabiilka oo ka qiimo badsa qarannimada